بسم الله الرحمن الرحيم أنا عبد الغني قولي عبد الله وإحنا هالكم باق على سوق الشدينية تدوينها الدمان كنا قن قبل كساحل وأنا ليه هاي وحال نقصه له بيش سجالي أتكيدا كان قاعد الشدي ديوان قلنتي عن سميني تعب كي دمان قبل كساحل سميني كاركي أيا لقيبينيا مركز دوينها قبل كساحل وإحنا سوق الشدينية inay kaarka qaataan ninka kaarka maanta qaata ay ma doorashada soo socota ee golo deegaan leh ee baarlamaan leh ee madaxweyne ka codeynaya markaas daraadid waxaan dadweynaha gobolka saaxib kula dardaarmaya inay maanta u diyaar garoobaan si ay kaarkooda u qaadan lahayn waxaan gaar ahaan la hadlayaa dadweynaha ku dhaqan galbeedka gobolka saaxib gaar ahaan degmada Bullaxaar waxaan leeyahay deegaankeeda dadweynaha halka ilaahay ku beeray inay u diyaar garoobaan kaarkoodii ay xaq u lahaayeen ku footeynayeen ayaa maanta la qaadanaya ninka maanta kaarka qaadan waaya wuxuu waayayaa awoodii xaqii uu dastuurku siiyay ee ahayd inuu doorto lana doorto waxna uu doorto haduu qaadan waayo waxna dooran maayo lana dooran maayo marka ninka boyskiisa kaarkiisa qaadan waayo wuxuu noqonayaa nin dayacay degmadiisa ama gobolkiisa oo halka waxba ka maqnaanay marka waxaan soo jeedinay dadweynaha ku dhaqan degmada Bullaxaar inay u diyaar garoobaan deegaanadii oo lagu kala maqan yahay abaar baa jirta dadku way kala maqan yihiin marka waxaan leeyahay nin kasta meeshu joogaba ha uu soo diyaar garoobo si uu kaarkiisa u qaadan lahaa shanta doorasho ee nagu soo aadan diiwaangelinta kaarka maanta la qaadanayo ayaa lagu gelayaa hadday noqoto golo deegaan baarlamaan iyo madaxweyne kaarkaas waa dad kaarka qaadan weydo ma codeynaysid halkan waxaan baa uga soo jeedinaa salaadiinta cuqaasha aqoon-yahanka waxgaradka reer miyiga inay u diyaar garoobaan si ay u qaadan lahayn kaarkoodii oo ay u camir lahaayeen degmadoodii deegaankooda si ay uga dhex muuqdaan golayaasha qaranka iyo dhammaan Soomaaliland si uga dhex muuqdaan waxaan dadweynaha kula dardaarmaya inay u diyaar garoobaan kaarka imika waxaan ku wareejinay Caawil Maxamed